بسم الله الرحمن الرحيم waxaan idin hayaa halka isla mareen dhalinyarada ama akhyaarta ama asxaabta iyo jacaylku bila dhageysta Abdullahi waxaan ku weydiinayaa jacaylka oo laba kalmadood jacaylka sayid u aragtaa Abdullahi بسم الله الرحمن الرحيم horta jacaylku waa wax jira laba صح anoo meel dheer baan ka bilaabin anoo ka bilaabay halka aan joogno صح horta adiga waxa kugu dhalaysay waxaan waa jacayl inaad iga dugto iyo midii weydisay jacaylku muxuu yahay waa jacayl kugu dhashay weydisay صح teeda labaad waxa kale taajirta hawl kale weyn oo wax jirta gashay صح buug baa qortay weyn oo biyaan dhawaanto noo iman doona duu ilaahay san filayno صح ilaahay noo soo dejiyay صح buuga markaad qoraysay صح jacayl baa ku dhashay صح waxa uu tagtay Ethiopia صح waxa uu tagtay baadiye صح waxa uu tagtay meel duwaag leh صح meel cadow leh صح waxa jacaylada ku dhashay baa jacayl kamid ah صح Soomaaliya tagtay صح meel ka soo meel Soomaali deganto dhan waa tagtay صح inaad wax soo buuxisto oo buug qortid صح waa jacayl waxa ka dhiganta saaqo buuga ina qortid wixii kugu dhaliyay waa jacayl jacaylkuna waa san waa ku dhalasho qofka markay ka soo galo waxan qofka uu jeclaa waa maasantahay Cabdillah waa maasantahay suxuush waxaan ku weydiinayaa su'aal quraatay jacaylka sayid u aragtaa oo laba kalmadood bas jacaylku waa nolol ونولل بلا جعيل نولل نولل معه marka waxa waragtaa jacaylku waa nolol soo jacayl waa nolol ma hin baad leedahay waa maasta xasan mas'uud assalamu alaykum rahmatullahi wa barakatuh mahdi geedi cige waxaan ku weydiinayaa jacaylka sidoo aragtaa jacaylka aan baad soo kuleeyahay jacaylku oo laba kalmadooda wallahi aniga han jacaylku xiliya ijmaac hay iyo lacag waa aragtidaadii ha haddaan ku sii weydiiyay bal maxay lacag maxaad uga jeedaa والله أنا وحنا مشينا هي العجيز قف كيسنا عايشين وناس عايشين marka waxa leeyahay dad lacagaysan qof ma jeclaan karto ma jeclaan kariis ha waa ra'yigaaga muhiimada horeysa lacagaba ya lacaga marka lacagaysid iyo wax jeclaan kartaaba صح waa ra'yigaaga mahad geedciga waa maasan tahay bismillaahir rahmaanir rahiim abzaaq daawud waxaan ku weydiinayaa jacaylka sidaad u aragtado oo laba kalmadood bas عليكم السلام جعلك هو مقصد كإدري النوشة لو نوليه بلا جعل نول والرأي سداسي بلا جعل نول مجرته وما صدق بزاق داود أي يوسف داهر أحمد السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته سيدو أركتها جعلك وحن كهضوني جعلك إن هذا يقول معني سيد لبك المذود جعلك سلوك كليه هذه أو لبك المذودة جعلك أنا وحيليه ها سيدو أركتها جعلك هذا فول ويوك وجاجي قرح أي يا شرف بكويا لا قروح يا شرف بكويا لا هذا جعلك أو لبك المذود وحتري وقروح يا شرف ها أنت هذا تقول جعل الحين وبفول يودر عارية لبوستا أو جاد وحيرامة صح وأبيه بكلاوس أبيه بكلاوس لك جعل هلا جاد بداية على ذول بستاو كرفدي وعذر يرنو يفسد هذا وحتري ونولونيو قروح عبد الله دان صديق السلام عليكم ورحمه الله وبركاته عليكم السلام ورحمه الله وبركاته سؤاشان ku weydiin waxaan jacaylka sidoo aragtaa adu jacaylku sidoo kule yahay jacaylku waa nolosha koobaad ee adduunka aye jacayl meel uu ka jirin nolol ma jirto aye wax kastana waa jeclaan karaysaa jacaylku noocyo badan buu kala baxaa laakiin kow waa nolosha ilaa adduunyada ku kala socoto adduunka socoto jacaylku markaa waa nolosha adduunka ha ma santa Cabdillah laakiin waxyaabo badan oo la jeclaan karaa jira aye usii kala baxaadii way jeclaanaysaa جاد بجلان سا وبد بجلان كريسا ولاد بجلان كريسا أوف قبر بجلان كريسا صح وبدأ لكن دل كاجا جلان لكن حبده أقوم مدن واكا دلهان وعويان ونرشي وما صدق عبد الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عوالي عمر عبد الله وحن كويدينا جعلك بس أول لبك المدودة جعلك الصدوق هذه كلية هي مسؤول جعلك مسؤول هيبة ها جعلك برضو نوشة غير كذا نوشة قيبتين صح qofka ku dhex jeclaanay صح naftiisa ku farxada nafta ku farxada hay oo deesay isku arkaa qiimiye qayale صح واسوي كوجاغو ها هذا قف ده نفtiisa soo bariba ها dadku buu gashaa hay marka jacaylku uu ku qaabeeyo ku dhisaa uu ku qaabeeyo waa ra'yiga in Awaali Umar Abdullahi waa ma santahay hay sheekh Usmaan waxaan ku weydiinayaa jacaylku adigu suu kula yahay laba kalmadood ma ka doonaya nolosha horeysa koobaad soo aragti waa nolosha horeysa hay nolosha bila jacayl de ma soconayso marka jacayl la'aan waa nolol la'aan sidaa baad adu leedahay marka waxa tirada nolosha koobaad Usmaan waa ra'yigiisii wuxuu yiri jacaylku waa nolosha koobaad oo ma santa Usmaan alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh salaaman muumin waxaan ku weydiinayaa su'aasha jacaylka sidoo aragtaa adu amba suu kula yahay oo laba ka eraya عليكم السلام ورحمة الله وبركاته هذه جعلك وحيجو يدسي جعلك والله وأضو وحجعلاتي يو وحياة جعلاتي
ورأيك ورأيك صح والله ما صنت ورحمة الله وبركاته تيتي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته waxaan ku weydiinayaa jacaylku waa maxay amba jacaylka sidoo aragtay adu jacaylku waa wax ku dhasho sontimoya qofka gala markuu galana jacaylku qofku jeclaanaya kadibna awlaad iyo ciyaal bala dhala sax jacaylku waa sida jacaylna waa deesho ma sheega jacaylkana waxa jira ku aanteeriyo dadku ka daneystaan sax oo lacag iyo aanteeriyo ninkan dhiigan ka jaqiyo waxa saala kelimada la saalayra sax midna waa wixii aayo iyo rajal sugay ma garanaysaa ma ilka jacaylka afrikada soo bilaamay waa jacayl aanteeriyo oo la kala qaadanayo safadaha hadana la kala caymadayo sax way tahay de jacaylku waa jacaylku waalidkii hore ku dhasnaa sax reerana ku dhisan yahay sax adduunka dhan ku dhisan yahay sax de waa ka hadii hadalkay marka adii waxa weeyaan sheekadu jacayl aanteeriya iyo jacayl saxa jira waa laba jacayl waa ma santa tiiti anaga kala saari dooni bismillaahir rahmaanir rahiim asxaabta iyo qaraabo meel kastoo dunida daafiyay ka joogtaan waa salaamaya ilaahu wax sanaga dhawaaji maanta oo khamiisa bisha 12 tahay waa hooyad waa khamiis bisha 12 maanta waxaan soo qaadan doonaa jacayl iyo sifooyinkiisa bal maansadii ku saabsanayd jacaylka ka hadlaysay iyo sidoo kale waxa jacaylku amba sawirka jacaylka ka hadlaysay haddaan idin bilaabo maansada bismillaahir rahmaanir rahiim saadahan ka bilaabo ha idin sawiro jacayl iyo sifooyinkiisa سهل يعني كدافع جعل مسجدا مصلي نبضبا مسجد سوكردا مصحيم الله الراعا مكرور يا صليبا مصيف يا ورنبا ممنوع من مصون يا بوعبا من نسر الرويبا ممنوع من الصحر با ما ضبلك سنبيدو نفسها وكريتا مسيرات افتيماء مش وحسع سعنو سن اللي فهمين با ما يصاحي يا مكان سيفي وحي صوبحي inuu yahay dareen sugano sanbabada wadnaha iyo seeraha halbowlaha runtii si weyn u asiibo soorta kuu diido surmi iyo haraad iyo hurdada kaas fulsho sas kugu noqdo salo kugu beero habeenkii ku saqaafsho sidii cilmi boodhan ama qayskii saqiiray nolosha kaa saahiibso saxariir ku marsho sidoo doona kaa yeelo luxda ku seexsha marna waa siraad iyo nuuro sidayaal isu boholiyoobayo si weyn iskugu baanaayo ka soomay sulsulaa hadba surin wareeg oo samiriye weheshay alkaysi ayuu suura galiyaa riyadoodii iyo sida iimaanka ku hayeeno dadki u saxa arrinkoogo saaciidiye farxad iyo samaha uu ku dabaala oo sida ku wadaaga nolosha ishaansanayeen inta waxa ku dhan maansadii jacayl ka hadlaysay waxaan leeyahay xukuumaddu oo madaxweynuhu horeeyaan waato shirkaddu meel kasta joogaan dunida afay ku joogaan walaadaan waxaan leeyahay waxaan ugu salaamayaa salaatu islaamka والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هيدوبنا كومنكا هيدوبنا سبسكرايبكا إن هدان إن كان حبيب ما نصحه أفرسيس المدير إكسيو أو جعل كأون كهالليسا إن واحد كلمة صلاة ستري l'amour n'est pas juste une attirance ni un choix ou une préférence il n'est pas lié à la beauté à l'intelligence aux belles qualités oh non l'amour est une connexion une vibration magique une force mystique un courant unique, une tempête d'émotions sans repli ni option. L'amour est indomptable, il est implacable, il est le roi qui dicte les lois. Il ne te demande pas la permission car il vient avec des situations. L'amour n'est pas juste une attirance, ni un choix ou une préférence. Il n'est pas lié à la beauté.